الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء إن إله مهد ما أنت تسكله إن نقدر قبيلة ذي قيبها بالشتى سأنو يسوق هيبرعنه أو يسوق يدقرنه أمام بدن يا أمانة حاجة بهنا الرسول كنا يسوق ناطي عليه الصلاة والسلام أنت كدي إذا لهان مرتدى برنامج كان سأن كلا سوري بدلهين أو كل يلا بيان وضم هذا نقيا waxaan dareemayaa inay waqti isoo geliyeen si ay uga faa'iideystaan buuggan aan ugu baaqay kuna soo marti qaaday muddada badanna aan lahaa iga suga buuggii waan idin soo wadaay sida aad la wada socotaan barnaamijkan ilaahay ka soko waxa inoo fududeeyay qaabkan quruxda leh ee qiimaha leh inuu soo qabsoomana sabab noqday naadiga akhriska iyo qoraalka ee hal qor ee Hargeysa ka dhisan waa naadi aan filayo inaad wada garanaysaan aad iyo aad baan iyagan ugu mahadcelinayaa waxaan gaar ugu mahadcelinayaa walaalkay Ridwaan oo inankii barnaamijka xiriirinayay ah oo isagu si ka duwan inamada kale barnaamijka uga shaqeeyay waqti weyn u geliyay waxa aad waqtigiin ama maadaama oo ay sababta iyo sida aynu barnaamijkan u nimi ay tahay in aad wax ka ogaataan oo wax ka kororsataan diganahan caawa magaciisa uu idin hor yaalo waa abka haleel si aad wax uga kororsataan maadaama aad u timaadeen wax waajib u ah inaan ku hormaro macnaynta iyo fasiridda magaciisa buugga magacan buugga waxa uu ka kooban yahay waa labada eray aad aragtaan ama labada weerood ee isfalgashan waa ab iyo ka haleel erayga ab waxa weeyaan eray tilmaamaya isir aynu ka soo jeednay ama meel tafiir aynu ka soo jeednay waa eray inoo tilmaamaya oo aynu ka arkayno inuu yahay wax hore oo khaasatan xagga Soomaalida markaynu eegnana awoowayaal iyo aabayaal tilmaamaya ka haleel hadii aynu u soo gudubno weedha iyadu falgashan ab iyaduna waxa ay noqonaysaa kahilitaan marka aynu isku xiriirino wax weeyaan oo macnaha buugga aynu isku eegno inaynu isku xiriirino isu dabagelino waxa uu noqonayaa aabayaal wax laga soo gaaray ayaa uu noqonayaa marka inta aan ka gudbo waxa suuragal ah inaad weli isweydiinaysid magaca buugga ama aanay ku dhaadhicin maadaama ay sidaa tahayna waa inaan bal tusaale keenaa marna ma ka maqashaa waayeelka ama dadka waaweyn waxa ab iyo isirtoona wali waa suurtagal jawaabta badankiina ha u badanaysaa intii aan hore u maqalna waxaan jecelahay inay caawa maqli doonaan marka halkaas intaasina ku fasiran tahay waxa buuggan ugu ah ama uu ka hadlayaa wasaqayo imisa ah marti barnaamijkeena la joogto waqti dheer soo gelisay barnaamijka in badan isugeysay aniguna Hargeysa aan ku cusbaa aawadeed aan wadada niyo macaljaamka gooridu garanaysay baan siriyo ay ugu yarcanaadeen marka waxa rabaa inaan dedejiyo oo erayadii aan soo diyaarsaday ee buugga idinka sheegi lahaa aan soo koobo anoo ixtiraamayo oo tixgelinayo waqtigiina iyo xilliga dambe aynu soo gaarnay aynu joogno buuggan waxa uu ka hadlayaa ama uu ah dhaqankeennii iyo asalkeennii Soomaalinimo iyo hidayaal aynu kaga soconay qowmiyado kale oo sida aynu inagu Soomaali ahaan u soo jirnay iyaguna u soo jiray marka aynu ka hadalno dhaqan iyo hiddo Soomaaliyeed ma aha inaynu ka aamino inuu yahay mid aan la falgeli karin horumarka qof ahaaneed ka qoys ahaaneed iyo waliba ka qaran ahaaneedba ma aha inaynu dhaqanka u aragno mid aan ku dhisan qabyaalad qabliin iyo habab qarriban oo qurxan oo ay qaawanaan tahay qaadashadoodu iyo ku dhaqankooduba waqti xaadirkan dhaqanka waynu qaadan karnaa waynu hirgelin karnaa waynuna soo noolayn karnaa waxa xusid mudan inaynu dib u raacno wax ka mid ah golayaashii ay ku caanka ahayd Soomaalidu waxa xusid mudan inaynu raacdayno sidii garta geesfadhiisiga iyo garaadsamida loogu dhameyn jiray marna inaynu fiirino ayaa xusid mudanaysa habkii geesinimada iyo gacantooyada lahayd ee loo kala badbaadin jiray gayaan iyo dad sokeeye ah oo gay ku wada noolaan jiray marka qurux
weyn ayaa kuu soo baxaysa oo aad ka arkaysaa qaabkii qiimaha iyo qaayaha xambaarsanaa ee loo kala qaadan jiray ama loo kala gudooman jiray talooyinkii qumanaa iyo cayn kasta iyo caado kasta oo qolo ama kooxi ay kooxda kale ku dhaantay qabiil marka aynu tilmaamayno waxa qiimo dareemaysaa marka aad aragtid ama xasuusatid ama aad akhrididba qaabkii qadarinta iyo xushmaynta lahaa ay isu tixgelin jireen qoysaska xidhiidha iyo iyadoo aynu ka akhrisan karno halkaasi asluubta iyagoo aan weliba ku khasaari jirin asluubtoodaasi wanaagsan ay wax ku kala gudooman jireen ama ay ku xidhiidhi jireen markaynu ka hadlayno aabayaasheen iyo soomaalidii dhaqankooda aynu hadda ka sheekaynayno ama buugga uu ka warramayo erayadan aan idin leeyahay waa erayo aad ka dhadhansanaysaan gar iyo guur baan soo hadal qaaday markaa buuggu waxa qaybaha ugu ubucda weyn ee uu ka hadlayaa waxa weeyaan qaybaha garta qaybihii ay u qaybsamaysay waa gartii Soomaalida gartu waliba waxa ay tahay shay ay Soomaalidu kaga bedelneed qoomiyadaha sida aan hore carabka ugu soo dhuftay dunida kale ku noolaa oo qaabkii inagu aynu geed fadhiisiga ugu dhameyn jirnay way yarayd qolo lagu tilmaamo in iyaguna sidaas oo kale u dhameyn jireen marka waxaad kaloo aan soo hadal qaaday oo erayadayda ku jira waa guurkana isaga waxa buugga gudihiisa ugu tagi doontaan in ka badan 10 qaybood oo guurkii Soomaalidu u suurtagali jiray ama Soomaalidu isu guursan jirtay waxna ku kala dhir jirtay oo aynu ku soo tafiranay waa suurtagal inteena soo qof in 10 qaybood uu qofba qayb ku soo farcamay oo qofba aabihii iyo hooyadii ilaahay si awoowayaasha ilaahay si ku kulmiyay oo ay isu guursadeen markaynu Soomaali ka hadlayno waxaan jecelahay in buuggu si faahfaahsan oo biyo weyn ugu fiirin doono isla markaana aynu uga faalloon doono ilahaasi buugga waxa uu heliya inta qaybaha guurka iyo garta qayb iyadu qaybtii igu dhalisay buuggan iyo in aan bilaabo waa qayb sheekooyin waliba sheekooyinkaasina u badan sheeko xariir marka leeyahay maaha sheekooyin baan laakiin waa sheekooyin qaarna Soomaalidu ay isu timin jirtay oo si kala duwan u soo gudbi jiray oo aynu isu soo gudbinay hadaynu Soomaalinahay iyo qaar anigu waayeel hadda da'doodu qaarnaba ay dhinteen Ilaahay ha u naxariisto caaw madashan waan uga ducaynayaa iyo qaar koodba ay nool yihiin oo aan ka xusi karo abwaanka buugga dushiisa iigu xusan Ismaan Ibraahim Warsame Hurre oo aad wada garanaysaa reer Burco marka dadkaas dad ay ka mid yihiin ayaa ka qoray sheekooyinkan iyo waliba islaamooyin iyo islaamo aan iyagu caan ba ahayn oo sheekooyinka qaar iga sheekeeyay waxa saldhig u ahaa sheekooyinkan ama buuggani inuu igu dhasho inuu buuggani igu dhasho waxa sabab u ahaa baan oran karaa sheekooyinkan markaan isarkay anoo ururiyay sheekooyin dhowr oo ilaa 10 sheeko gaaraya ayaa waxa ila qurux badnaatay inaan bal dhaqankii oo dhan gabi ahaantiiba u kuur galo oo aan isku dayo inaan u dadaalo sidii aan wax intan dhaamo uga soo kordhin lahaa waxa aan bilaabay buugga 2014 hayla yaabin intan waan ka yaraa 2014 marka waxa sababayana waxa buugga markaan bilaabay inta aan gacanta ku hayay waxa ay ahayd waa qaybta sheekooyinka marka qaybtii sheekooyinka marka ay urursanayd caawa buugga ay ka mid tahay wax ka mid ah buugga ay ku jiraan marka xilligaas aan buugga bilaabay caawa oo 2018 aynu joogno sanadaha inta u dhaxeeya arki kartaana alxamdulillah wuu idin soo gaaray marka buuggan tacab weyn baa ku jira waqti dheer baan qorayay waqti dheer baan u qaaday waxaan xusayaa wax ka mid ah caqabadaha buuggan igala kulmay intii aan qorayay markaan caqabadaha xusayo ma aha inaan munaasabaddan oo kale caqabad ku xuso waayo caawa waan faraxsanahay yool aan in badan sugayay inaan gaaro ayaan soo gaaray buuggii ayaan caawa mar labaad reer Hargeysa hor keenay markii hore waxa ahayd 2017 buug feerkii sanadkii hore caawa ayaan markaa hor keenay mar labaad marka waan faraxsanahay caqabad sheego ma ahayn balse caqabada waxa kalifaya inaan idin sheego inanka gabanka aniga ila midka ee maanta isku daya inuu u kuur galo dhaqankan iyo sidii uu u dardargelin lahaa ama u horumarin lahaa dhaqankii hooyadii iyo aabihii in caqabadahan hadii ay ka hor yimaadaan la yaab aan u arag balse uu u dhabar adaygo intan iyo in ka badan inay la kulmi karaana uu ogsoonaado oo aan kadis ku noqonin marka caqabadahaasi waxa ka mid oo aan hadeer ka xusi karaa waa in dadka waayeelka aad ba weydid mid ku soo joogsada oo ku sheega ilaahay mid ilaahay u naxariistay mooyaane oo kaaga sheekeeyo waxa uu og yahay laba
laba mid baan u aanayn karaa oo mid ay tahay inuu qofka aad moodid dadka qaar aan waliba arkay isku mid maaha sida farahaasi u kala duwan yihiin ayaa bini aadamku u kala duwan yihiin marka qaar waxaad arkaysaa ay ka dhab tahay inay ka khashaafayaan oo ay ka xishoonayaan inay dhaqankii miyiga wax ka sheekeeyaan wax ka sheegaan ama ay kugu dhahaan miyi baan ku soo koray ama ku dhashay waan jeclaan lahaa inaan miyi ku dhasho laakiin anigu maanta miyi kuma dhalan in badan oo qaar miyi ku dhasho magaalo soo galay aan ogeysa waan ogahay marka taasi waa sababi kartaa sabab way u noqon kartaa inuu qofkaasi ka khashaafayo mid labaadna waa dhici kartaa oo dad baa jiraya iyaguna ay suurtagal aanay la noqonaynin in uu inuu kuu soo fadhiisto oo uu kuu soo joogsado waqtigiisana wax kaa siiyo adigoo ku arko da'da aad leeg tahay iyo weliba waxa aad wax ka doonaysid oo ah dhaqan iga sheekee marka labadaasba way kaa soo horbaxayaan si ogow inaad heli kartid oo aad heli doontid in badan oo iyagu sida inta halkan iigu qoran ee aan ku xusay iyo in badan aan magacyadooda waayo oo maqaaxiyo aan kula kulmayba aad heli kartid oo si iyagu hagar la'aan kuugu sheegi kardoona waxaan jecelahay in aan soo ururiyo buugani markaa qaybta saddexaysa waa qayb sheekooyina qayb guura qayb gar ah qaybta afaraysaana waxa weeyaan afar cutub uu ka kooban yahay waa qayb asalkii ama seeskii hidaha iyo dhaqanka gurigii Soomaalida ka hadlaysa aqal Soomaali baan ka bilaabay aqal Soomaaliga markaan ka bilaabay xitaa waxa ku jira dawooyinkii la adeegsan jiray markii guriga lagu noolaan jiray marka sidaan horeba u sheegay waan idin ixtiraamayaa waqti fiican ayaad siiseen hadaa waqti dambe soo baxo waan idin soo laaban doonaa buugi waa inoo yaalaa waxaan kala soo socday waa ilaa Carigaabo Burcan kula hakaday caawina Hargeysa jooga waa idinka iyo buuga caaw waan idin kala baxay